tani waxay ahayd munaasabad xadhiga lagaga jarayay saldhigga cusub ee xaafadda Naasa Hablood ee magaalada Hargeysa waxaana dhulka iyo waliba dhismahaniba hirgelisay dowladda hoose ee caasimadda magaalada Hargeysa iyadoo munaasabadii loo qabtayna ay ka qayb galeen xogayaha fulinta ee dowladda hoose taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Somaliland marti sharaf iyo waliba dadweyne aad u tiro badan dhinaca kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee caasimadda magaalada Hargeysa Saciid Nuur Jaamac oo ku dheeraaday dadaalada ay dowladda hoose wado iyo waliba hirgelka saldhigan waxa ku baxday lacag 46,000 oo dollar ah lacagtaas dhamaanteed waxa bixiyay dowladda hoose magaalada Hargeysa dhulkana sidoo kale dowladda hoose ayaa bixisay sidoo kale waxa noo banaan dhulalkii kale aynu ka dhis lahayn iskuulkii hoose dhexe secondarygii dhulkii sariibada noqonay dhul fara badan oo danguuda ay noo banaan oo aan ugu tala galnay baahiyaadkii asaasiga ah ee xaafadu lahaan jirtay ay lahaan lahayd inaynu halkan ka dhisno runtii ma nihin kuwa dad intay soo raraan haddana ka hadhaya ee waxaan nahay kuwa daba socda noloshoodii baanu sidii ay u kafeyn lahaayeen ayaanu daba soconaa bilshii hore waxa loo qaybiyay raashin dhammaystiran oo ay runtii hay'adaha dawladda kala duwan ay u qaybiyeen wax horumar fara badan baa ka socda biyaha door walba la siiyaa markasta biyo ka go'an wadadiiba xaafadan loo hagaajiyay oo iyaduna ay maanta tahay meel baska iyo baabuurta yararaba ay soconayaan waa xaafad cusub oo ku soo biirtay magaalada Hargeysa oo ku faraxsanahay sidoo kale waxaan ku faraxsanahay qoysaska ciidanku ay helaan dhul iyada oo iyagu ay leeyihiin oo maanta ay kaga baahi baxayaan meelihii temporary-ga ah ee deganaayeen idana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan saaka halkan xariga kaga jarnay dhismihii ama binadii aanu ka bilownay xaafadii cusbeed aanu dejinay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee booliska 500 oo qoys degsimadii aanu sameynay saldhigii loo dhisay ee loo bilaabay muddo gudahoodna ku dhamaaday ayaan saaka xariga halkan kaga jaraynaa goobtan markii aanu dejinay dawladda hoose waxay u astaysay in ciidanka la dejiyo ciidankiina alxamdulillah rabbil caalamiin way degeen talaabadii dambe ee ku xigtay waxay ahayd in adeegii bulshada halkan laga suuro geliyo ugu horeyn xanaanadii baa laga suuro geliyay imkana saldhigii biliiska oo ammaanku uu yahay sal ayaa laga suuro geliyay waxa ku xigi doona iskuuladii iyo sariibadihii oo maalmaha soo socda dawladda hoose iyo hay'adaha qusayeen ka suuro gelin doonaan maanta waxaynu u joognaa xafladii xadhka jirka saldhigga Naasa Hablood iyadoo xafladaasi aynu ku joogno furihiina aan wareejin doono xogayaha fulinta wareejin doono iyo gudoomiyaha degmadu Cabdi Xasan taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska ee Somaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo waxqabadka muuqday ay ku tallaabsatay mahadna ay uga hayaan ka ciidan ahaan dowladda hoose iyo mas'uuliyiinteeda waxaan uga mahadnaqaynaa marka hore 500 oo qoys ee biliiska iyo ehelkoodii ay dejiyeen dhul ay leeyihiin maanta mulkigooda waa uga mahadnaqaynaa amni iyo iimaan rasuulku calayhi salaatu wassalaam amnigu horreysiyay saldhigiina mar hadday ku dareenay dhiseen iduna waa ilaahay mahadii waa dardaarkii rasuulkay raaceen annana waa uga mahadnaqaynaa insha Allah annaguna waanu ku shaqayn wixii waajibaadna saarana waanu gudun doonaa guud ahaan runtii dawladda hoose ku amaani maayo laakiin hawl badan bay wadaa wadooyin meel aan ka filin baa wadooyin laamay oo samaysan naga soo baxeen saaka ka mid ahayd marka ilaahay hawsiyaadiyo iyagana anoo idin garab taaganay wixii hawla qabanaysaanba diyaar baan idin nahay anna waxaan ku rajaynayaa furayaasha taliyaha qaybta bariga Hargeysa gaashaan la sare Xasan qaar ka mid ah shacabka xaafadaasi ayaa iyaguna dhinacooda ka mahad sheegtay saldhigaasi la hirgeliyay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa saldhiga maanta la furay way amni hadaan u jirnaa duumay jirteen waan soo dhaweynayaa in saldhiga maanta la furo saldhiga iyaga cusub ee naloo furay ee naloo dhisay ee naloo dhagax dhigay waan u mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan salaamayaa Cabdikariin Axmed Mooge iyo tiinkiisa dawladda hoose boqolkiiba boqol way mahadsan yihiin maanta Allah mahadle waxaan u ilaahay baan marka hore u mahadnaqaynaa mar labaad dawladda hoose maayirkayada waan u mahadnaqaynaa wixii aan uga baahnayn bar waa ka haynaa inta dambana waa ka doonaynaa insha Allah bidmillaah